dhalinyarada magaalada Beledweyne oo ka cabanaya dhaca mooto bajaajta oo si weyn uga taagan magaalada Beledweyne. Maamulka Puntland oo heshiis la galay dowladda Itoobiya xilli ay taagan tahay xiisada u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya. Faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya dab ay dad ku dhinteen oo ka kacay goob ganacsi oo ku taala degmada Balihanac ee gobolka Sool. danjiraha cusub ee dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka South Africa oo warqadaha aqoonsiga laga gudoomay. Dibadana habeennimadan waxa aad ku maqli doontaan dibadbaxayaal careysan oo ku yaacay gudaha baarlamaanka Israa'iil. waa habeenimo Arbaca ay sii baxayso halka Khamiis ay soo galayso 3 bisha Afraad sanadka 2024 kuna soo dhawaada qodobadaasi iyo qodobo kale habeennimadan waxa idii warami doona Cabdiraxmaan Macalin Muuse. aynu ku bilownaa maamulka Puntland ayaa heshiis la galay dowladda Itoobiya taasi oo ay taagan tahay xiisadaha u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya. warbixinta warkani waxa soo koobaya wariyahayaga Cabdiqani Casable. maamulka Puntland iyo Itoobiya ayaa maanta heshiis horudhac u ah oo dhinacyo badan taabanaya ku gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddankaasi. wasiirka maaliyadda Puntland iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa kulan xasaasi ah Addis Ababa kula qaatay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya. kulankan ayaana lagu gaaray heshiis dhowr qodob ah oo ugu weyn yahay iskaashiga kaabayaasha dhaqaale ee labada dhinac, kaas oo ku qotoma dhinacyada ganacsiga, maalgashiga iyo iskaashiga tamarta. Puntland iyo Itoobiya ayaa waxaa ka dhaxeeya xiriir qoto dheer ah oo iskaashi ku dhisan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ee xukuumadda Addis Ababa. xukuumadda Addis Ababa ayaana xilligan u muuqatay mid maqaam midkii hore ka sareeya siinaysa xiriirka maamulka Puntland. talaabadan cusub ee ay qaadeen Puntland iyo Itoobiya ayaa imaanaysa xilli ay weli taagan tahay xiisada badda ee Soomaaliya ee kala dhaxaysa xukuumadda Addis Ababa. sidoo kale waxa ay ku soo aadaysaa xilli uu sii xumaaday xiriirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland uuna maamulka ku dhawaaqay in aqoonsigii iyo kalsoonidii wada shaqaynta kala laabtay hay'adaha dowladda federaalka. Hoggaanka Puntland oo markaasi meel adag iska taagay ansixinta dastuurka ayaa tan iyo markaasi ku doodayo inay awood u leeyihiin inay u dhaqantay sidii dowlad madax bannaan ilaa inta laga helayo dastuur federaal oo heshiis lagu yahay. dowladda Puntland waxay yeelanaysaa awood dowlad dhameystiran oo madax bannaan inta laga helayo hanaan dowladeed oo federaal ah, heshiisna lagu yahay, lehna dastuur Soomaali heshiis ku tahay, afti dadweynena loo qaaday oo ay Puntland qayb ka tahay ayaa lagu yiri war qoraal hore uga soo baxay Puntland. aad buu mahadsan yahay Cabdiqani Casable oo warbixinta warkaasi inala socodsiinayay. markana haddaynu dib ugu soo laabano magaalada Beledweyne. dhalinyarada magaalada Beledweyne ayaa ka cabanaya dhaca mooto bajaajta oo si weyn uga taagan magaalada. 48 saac ee la soo dhaafay waxaa magaalada Beledweyne lagu kala dhacay ugu yaraan 10 gaadiidka mooto bajaajta waxaana la kala geeyay qaybo kamid ah xaafadaha Howlwadaag iyo Xawataako ee magaalada Beledweyne. qaar kamid ah wadayaasha mooto bajaajta oo aynu mikrofoonka la dhex qaadnay ayaa walaac xoogan ka muujiyay dhaca mootooyinka ee ku soo badanaya magaalada Beledweyne, waxaanay baaq u direen maamulka gobolka kan degmada iyo laamaha ammaanka si ay wax uga qabtaan dhacan loo geysanayo mooto bajaajta ay ku soo badanaya magaalada Beledweyne. mootooyinka aad macnaha iyo aad ugu xumay sababtoo ah dad macnaha gobolka Hiiraan soo dad walaa oo wadanaanay oo bajaajley hadan isku dhaliyaa waa ku xumay hadana iyagu maalintii Ramadaan lagu jiro maalintii dambeeyay in macnaha mootooyinka kala dhaco waxa iska dadkaas oo dad lagu qofma oo dad iska maangaabe oo dad macnaha waa iska dad macnaha maangaabnimo ku shaqeeyo oo dad walaa qofka hadda uu dhaco dhimata la dhaco oo raxsi u jeedo intuu deena macnaha waa meel uu ku wada kara meel macnaha uu marsiisan kara ma dhimata ka soo qaado bari raxsiga ka soo dhacay bari kale ayagana macnaha meel ay ku wada karaan ma waxa way waa dib macnaha oo qof uu dhibaatayna oo mugi wax macnaha dhac oo xaqiiqo oo si sax ah oo lagu dhaca ma laakiin dhac macnaha dhibaataysan oo dhalinyaro ay wadaan laakiin macnaha ku talina dhalinyarada in ay macnaha ay ka ay ka waantoobaan ay dadka macnaha si macaamiil kula dhaqmaan dadka dad walaalnimo camal ay ogaadaan ixtiraam ay muujiyaan maadaama ay u bishii barakaysana Ramadaanka maalin dambeeyay dadna lagu jiro inay xaqoor ay macnaha ay sameeyaan boqol baaq noocaas aan u jeedin dhalinyarada gobolka Hiiraan laasatan magaalada waxa kale oo dad macnaha dhalinyarada iska macnaha aad u shaqeynayeen macnaha xogaa maskaxdooda iska yar waa inta badan macnaha sameeyaan waxyaabo ay isku baysanaan qofka macnaha wax yar oo bendena walaayna ama wax yar uu sameeyay qofku uu sameeyay qof oo iska geysana marka waxa sidee u taqaanaa dhalinyarada keenayso
shaqaystaan. halkaad weli nagala socotaana waa hiiraan weyn qeybaheeda kala gedinaysan. markana danjiraha cusub ee dowladda soomaaliya u fadhiya dalka koonfur africa ayaa laga guddoomay warqadaha aqoonsiga. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka koonfur africa ayaa nuqul ka mid ah warqadaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee soomaaliya u magacaawday dalkaasi. munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi koonfur africa ayaa danjire maxamed sheekh isxaaq oo ay wehelinayaan diblomaasiyiinta safaaradda waxa ay ku wareejiyeen warqadaha aqoonsiga kusimaha agaasimaha waa markaasi brotokoolka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka koonfur africa. labadan mas-uul ayaa isla soo hadal qaaday xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya labada dal ee soo jireenka ah iyo sidoo kale dhinacyada u baahan iskaashiga in laga sameeyo. danjire maxamed sheekh isxaaq oo ka mid ah danjirayaasha ay dhowaan dowladda soomaaliya uga magacaawday safaaradaha dibadda ayaa la filayaa in uu maalmaha soo socdo warqadaha danjiranimaha waa markaasi guddoonsiiyo madaxweynaha dalka koonfur africa. waxa ay xaaladan waa markaasi danjirahani kusoo aadayaa iyada oo ay jiraan marxalado la xiriira dhaca iyo dilalka loo geysanayo ganacsatada ku dhaqan dalka koonfur africa kuwaasi oo soomaalida. markana magaalada baliharac ee maamulka SC Khaatumo ee gobolka Sool ayaa waxaa ka kacay dabkaasi oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. warbixinta warkaani waxaa soo koobaysa wariyahayaga Shukri Baryare Maxamuud. wararka ka imaanaya deegaanka baliharac oo ilaa iyo 70 kiiloomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegaya in dhowr qof ay ku dhinteen kadib markii dab ka kacay goob ganacsi. Saleebaan Jaamac Ducaale oo maamulo ka ah iskuul ku yaala deegaankaas oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in khasaare xoogan oo ka dhashay dabkaasi oo ay ku dhinteen ilaa iyo 5 qof oo kala ahaa dadkii lahaa goobaha ganacsi ee dabku ka kacay iyo dadkii ka adeeganayaba. maanta waa 24 bishii Ramadaan oo ku beegan 3 bisha Abriil dagaalkii subaxnimo waxaa dab ka kacay rug ganacsi oo isugu jirta shidaal iyo ganacsi carwooyin. halkaas waxaa ku geeriyooday 5 qof. dabkaasi goobta markuu ka kacay dadkii ka dukaamaysanayay ama wax ka iibsanayay iyo qoyskii meherada u furayd ayaa ku waxyeelooday. halkaas gurmad fara badan oo ka yimid gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood oo xukuumadda Khaatumo soo dirtay degmada Kalabayd xidhxidh dhumay balcad gaadheer wurwud dhawasaar intaasba waxay gurmad ugu yimaadeen xaaladaas ay uga qayb qaadanayaan dalinta dabkaas iyo xakamayntiisa. dabkani wuxuu meesha ka dhex qarxay iyadoo dooyadi taagan tahay oo shidaal la shubayo meheradiina la iibinayo qaybo badan bay isugu jirtay. sida uu hadda dabkaasi wuxuu ka bilaabmay lama garanayo. waxa uu nala kulmay dabkii oo qabsaday meherada qaybaheeda kala duwan go'doomiyey dad gudaha ku jiray sidaana ay ku geeriyoodeen. dad ilaa 7 qof hadda waa dhaawac waxaa qaybna loo qaaday Laascaanood qaybna waxaa loo qaaday Wurwud. carwooyin oo dharkii iida yaalay oo dadku ay ka qaadanayeen oo hadda 10 dambe si weyn looga adeeganayay. dhismuhu waa dhismo aad saaran oo xagga hore ganacsigu uu ka furan yahay isagoo qaybo kala duwana qaybaha dambe ay qaybihii hurdooyinka waxaa yaalay qasnado qaybo rasaas ama qayb ku jiray oo halka rasaas laftigeeda qarax bay samaysay oo markii dadku soo geli lahaayeen taa laftigeeda waxyaabaha cabsida keenaya shidaalkii oo isaga laftigiisu qarax sameynayay dab lixaadlaa meesha ka dhashay. sida wax u dhaceen khasaaruhu waa u saaray marka loo eego maanta baliharac la isma odhan guri iyo dad waxbaa ka haraya. gurmadkii Khaatumo ka yimid waa noo yimid ambalaasada waa noo yimid intaa dabdamiskii Khaatumo soo dhaqaaqay markii warku uu gaaray dadka xakameeyay laakiin ambalaasada waxay ka qayb galeen dhaawacyadii bay gureeno gurmadkii madaxweyne soo diray iyo maamulka Khaatumo. dowladda shidaalku markaa waxay ku jirtay tuubada foortada ku jirtay iyadii si halaleela meesha looga saaray oo haddii dabkaas iyada si qabsan lahaa wuxuu dhali lahaa khatar kale u dhali lahaa. aad bay mahadsantahay Shukri Baryare Maxamuud oo warbixinta warkaasi inala socodsiinayay. say halkaad weli nagala socotaana waa hiraaweyn qeybaheeda kala gedisan. markana dibadda xubnaha lahaystayaasha Israa'iil ayaa xoog ku galay aqalka baarlamaanka xilli ay ku mudaharaadayeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi inuu iscasilo. xubnaha qoysaska lahaystayaasha ee la haysto marinka Gaza lagu haysto xubnaha la qafaashay ayaa xoog ku galay baarlamaanka Israa'iil. fiidiyowyada ayaa muujinaya xubnaha qoyskani oo kor u qaadaya kuraasta islamarkaana gudaha u galay baarlamaanka. xubnaha mucaaradka ah ayaa waxa ay iyagana ku biireen iyaga oo ku dhawaaqaya ereyo ka dhan ah ra-iisul wasaaraha Israa'iil.
dibadbaxyadani ayaa iyaga waxyar un kadib markii ay galeen goobtaasi marka hal nin ay si xoog ah uga saareen ciidamada ammaanka. wasiirka xukuumadda Israel ayaa waxa uu sheegay in xasiloonidu ay markaasi sii yaraanayso kadib markii mudaharadayaashii ugu badnaa tan iyo markaasi xukunka ra-iisul wasaaraha Israel ay kusoo bannaanbaxeen gudaha Israel, iyaga oo markaasi ku dhawaaqaya ereyo ka dhin ah oo doonaya in uu iscasilo ra-iisul wasaaraha Israel isla markaana la qabto wada hadallo u dhexeeya Israel iyo Xamaas si loo sii deeyo lahaystayaashooda. Habeennimadii Talaadada qaar ka mid ah mudaharadayaasha ayaa isla markaana dowladda kasoo horjeeda ayaa jebiyey baraha amniga ee ku dhow hoyga Netanyahu ee Jerusalem, sidoo kalena markaasi oo la xiray mudaharadayaasha ayaana muuqaal warbaahinta bulshada ay baahisay ayaa muujinayay iyaga oo markaasi ku dhawaaqaya ereyo ka dhan ah ra-iisul wasaaraha Israel. booliska ayaa sheegay in badan oo dibadbaxayaalihi ay u dhaqmeen si sharciga markaasi aan waafaqsanayn. qaar ayaa isku dayayay in ay gaaraan hoyga ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu oo xiran, iyada oo toddobaad waliba ay magaalada Tel Aviv ay ka socdaan dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda uu hogaamiyo Netanyahu. ayaa hadda waxay dibadbaxayaashu ay toddobaadkani ay mudaharadayaashu ay fasax markaasi gudaha u galeen baarlamaanka, iyagoo toddobaadkani u guuray magaalada Qudus si ay ugu mudaharaadaan fasaxa baarlamaanka, iyada oo ay markaasi baaqay in ay doorasho cusub la qabto, taasi oo dowladdu ay wax badan aysan markaasi dooneyn. Netanyahu ayaa sheegay inuu dhinaca kale ra-iisul wasaaraha Israel Netanyahu ayaa sheegay in uu xiri doono xafiiska Al Jazeera ee Israel. ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in uu albaabada isugu dhufan doono xafiiska telefishinka Al Jazeera ee laga leeyahay dalka Qatar oo ku leeyahay gudaha Israel. Netanyahu ayaa raacaya sharciga cusub oo ay soo saartay Israel, kaasi oo xukuumaddu awood badan u siinaya in ay tallaabadani qaado hay-adda warbaahinta ee ajaanibta ah ee halista ku noqon karta amniga qaranka dalkaasi, sida hadalka loo dhigay. dhinaca kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa care ka muujiyay dilka Israel ay dad samafalayaal ah ee u geysatay Gaza. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa shalay waxa uu sheegay in uu cadho iyo sidoo kale qalbi jab uu dareemay kadib markii duqeymaha Israel ay ka fulisay Gaza ay ku dhinteen 7 qof oo ka tirsan kooxda gargaarka ka shaqeysa oo lagu magacaabo Wall Center